hawlo badan oo muhiima in la tartargeliyo muhiimad gaarana la siiyo si loo xaqiijiyo xil gudashada dastuuriga ee aqalka sare waxaana higsanaya in khilaafyada cusub in kalfadhiyada cusub uu ka howlgalo arrimaha soo socda kow bilaabidda dooda dib u eegista dastuurka ee lagu wado in la hor keeno labada aqale baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaan guddiga labada guddi ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka waxay noo sheegeen in ay waa 15 chapter cutub uu ka kooban yahay dastuurku 10 inay diyaariyeen 5 hadda guddiga madaxa bannaan loo dhiibay oo ka soo gudbay guddiga baarlamaanka ee dib u eegista oo ayna noo sheegeen inay diyaar u yihiin inay u soo gudbiyaan labada aqal annagu diyaar baan u nahay oo waxaan ka dhiganay qodobka koowaad